dadkiisa qabay oo xaasaska ahaa nimanka naagiis qabay jilayaalay ahaayeen mugta movie no soo jiri jireen marka aniga iska ogaa waligayba iska ogaa aniga social media life nolol social media la keeno waxay taan aqaana ma ku dhamaatana waa aqaana bawyaalow ciidan dad badan ma hayno niman iyo naaga badan oo ayagoo isku rafaadsan oo cadaabaha isjiirsiihaya oo ay ka qasan tahay oo maali ilaahay keen taa isu teestayahay teesta la isku wado oo waxa jireen jilayaal fiican ahaa social kaba yare dalmar yare way jecleed sida wada ognay jeceel u qabto dartiisa wiilkeeda ku sansatay dalmar ay u bixisay isku ahaayeen way isku istiimi jireen heesta dhunkasho ma daabata ma aragtay sida isku ahaayeen heesta dhunkasho ma daabateen sida isku ahaayeen ma aragteen dalmar yare iyo farxiyo kaba yare dadka hadda wax iska sheegayo sida isku ahaayeen ma aragtay labadan bishimo oo la leeyahay oo la saaray isma taabanin ani ma ogoleen ebelba waa diidanay labadan bishimo isma taabanin ebel anoo diidanaa ee hadda banaanka toos u soo wada baxday way is celin weyse hebel iyo la jirtaaba ii soo qoraysaan walaalkay ma qof kala jiri karaa su'aashaas ay weydiinayaan walaalkay waa walaalkay okay kama kaftamo socod islaamid kuma tiigsanayo madaxa uga istaagay okay laakiin my brother is my brother qof aan ku doorsanay adduunka ma jirtee are you serious guys yeah Allah recommend aad iska diga you have to be silent killer so my brother is my brother Nairobi la halkan maxaa soo socday dhiigga ay wada daanimo wasacanba warkii hore war soo dhaaf dagaalkii faneed ee Marwaan Yare iyo Dayaxdal Nuurshe ka dhaxeeyay oo yani isku bedelay dagaal qabiileed hal nin iyo qoomiyad dhan Dayaxdal Nuurshe waa dib qofkii dhankiisa soo marana asiga gubanayo nin waay rijaal wa rijaal dadkan kala qeylinayo intii ka socotiin dadkan kaloo qeylinayo intii ka socotiin bahasha waxay ku qurux badan tahay waa laba wiil oo dhalinyaro ah fanaaniin ah oo dadka iskaaga dhow oo ayaga isku shaqo ah oo ayaga isku dad ah haddii taas ka soo gudubtana hal isla dhiiqaysta ee tahayna waa la isla dhiiqaysanaa dib ma lahan xanta freeshka ah way iska soo daba dhacaysaa maalimahan ciid hadhihin rabadaan hadhihin hal isla dhiiqaysto hal isla dambaawo socoto warkii hore war soo dhaaf dagaalkii faneed ee Marwaan Yare iyo Dayaxdal Nuurshe ka dhaxeeyay oo yani isku bedelay dagaal qabiileed hal nin iyo qoomiyad dhan hal nin iyo qabiil dhan hal nin la yiraahdo Dayaxdal Nuurshe iyo qabiil dhan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dadka qaar xishoodkii ee damiirka ma lahan Marwaan Yare ma lagu kalsoona miya inuu dayax iskaaga aadin uu iska dhicin karin meel og yahay Dayaxdal Nuurshe waa dib qofkii dhankiisa soo marana asiga gubanayo nin waay rijaal wa rijaal dadkan kala qeylinayo intii ka socotiin dadkan kaloo qeylinayo intii ka socotiin bahasha waxay ku qurux badan tahay waa laba wiil oo dhalinyaro ah fanaaniin ah oo dadka iskaaga dhow oo ayaga isku shaqo ah oo ayaga isku dad ah haddii taas ka soo gudubtana hal isla dhiiqaysta ee tahayna waa la isla dhiiqaysanaa dib ma lahan jirkiisa la haysto waxa la yiri jirida kama qoslo qof walba loo hadlo qofka kala dad u hadlo wuu leeyahay laakiin waxay ku qurux badan tahay in la isku daayo labada nin meelaha is saaraan ama heesa isku karbaashaan ama gacan ha isku qaadaan ama ha kala aamusaan ama ha is dilaan laakiin bahasha ilaa reerkan markay gaarto mid laga aamusi karo ma ahan bilaa calaykum tii ugu darneed waxa waay Rayaan Bajaaj oo inta 1 iyo 2 ina ka dhaho araba Rayaan wixii tiray aniga dhiig baa i waday wixii i waday ma aqaan horta carabkiyo muruqka gelin laba maalin qofka la ciishtid oo gacanta saxanka bariis ala gelisid ina hadalkiisa iska raadisid waa ku damiir xumo iyo dadnimo xumo lahjada leedahay luqada leedahay ku hadli kartid oo lagu yaqaano laakiin ya
rayaane horta adima iska warqabtaa tiisa daryeelaa too kale ku daree intaad dayax iyo marwaan arrintooda ka hadlin adima iska warhaysaa rayaane dhiiga i wada waxaa dhahdo naag sal iyo baar leh oo meel degan oo yacni meel xasilooni lahaa dhahdo laakiin naag diyaaradda socotaba saaran naag hargeysa ka dhaceyso xamar ka dhaceyso inta ka dhaceyso yaa dhiiga i wada maba dhihi kartaba inaa kugu fogaada maraba intaas jawaabta rayaan bajaaj waaye afkaaga i dhegtaada ha ismaqlo dhiiga i waday markaa sal yeelatid oo Nairobi ku ekaatid ama xamar ku ekaatid dheh dhiiga i wada laakiin diyaaradda socoto waa saarantahee dhiiga ku wada meel oo ku wada email oo ka socdo inuu daad socdo yahay iyo inuu dhiig bini aadan yahay maba kala aqaanaba aniga taani shay waxaa la leeyahay asxaabta rayaan bajaajteeda meesha ugu baxay marwaan hala soo fasaxo dayaxdal nuursha lagu soo daayay marwaan yare waa laba nin arrintoodana ma deeqdo labada haddee ka badatana waxa waaye waa laysla dhiiqaysaha ee haleysla dhiiqaysada gaarto bahasha haleysla dhiiqaysata haddii gaarto waa laysla dhiiqaysaha ceeb iyo dhib ma lahan yaa waxyaabo badanaa soo hadlaya nin macalnaag wixii yacni cayayaan joogay dal iyo dibid way soo wada qeylinayaan way wada doodayaan way wada dudayaan way wada shirayaan waxay ka shirayaan hal nin la yiraahdo dayaxdal nuursho oo deb ayaga dhan hal mar wada ololinaayo ayaga dhan hal mar wada gubaayo ee ka wada shirayaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un asxaabta qaaliga inaan ku dheeraado mar waxanta way iska soo daba dhacay marka idin dhahayo tii hore tana ka daran naagti farxiyo kaba yara ahayd oo toos meeg toos ah u qaadatay ex amoraatigeeda dalmar yare waxay taagan tahay dalmar yare naagti wuu furay lamaanayaasha cimrada isla aadsan jiray lamaanayaasha kacbada isla aadsan jiray maxaa la dhahay way kala faniineen macshi iyo maqrab ay u kala faniineen farxiyo kaba yare maseer maaheeyo mise farxad ee warkaas noogu sheegaysaa horta farxiyo kaba yare masaajid dhisan qoys isqabo inuu burburo ee kala faniinaan danta kuugu jirto sidaan aa ugu faraxsan tahay aa u qoslaysid maxay tahay dad isqaba waxaa la yidhaahdaa masaajid dhisan ilaahu isku haay isku maslaxeey isku dhaq labadaas qof aa la yidhaahdaa laakiin qofka markuu qofka jecel yahay qofka uusan ka maarmin uu dhammaad ka lahayn uu wax baro ka dhadhanaansado meel kale ka aado dhammaad ma lahan waa tasaan camal wax yar waxay raadiyay bas xogtiisa hoose qoftan waxay wax ugu sheegayso rufiyaannimo u maleynayaan iyo inay wax fiican u sheegayso sir ka qarsoon inay u sheegayso qoftan jaanis ay raadinaysay ee wixii la baray inuu soo noqon karo bi'ay waqti bi'ay time ee idin sheegaysaa marka waxyaabaha qaar waa laga qurux badan yahay qofka hadda isfahmi weyseen walaaltinimada wax dhamaada ma ahan dadku way dagaalaan way heshiiyaan laakiin ninka caadi ah u daba dhigatay dhamaad maba kaliyidba dhamaad dalmar yar la yiraahdo ma lahan sagaashanku wuxuu ku heynaysaa dalmar yar bishii waa 3 jeer 4 jeer inay afka ku soo qaada dalmar yar saasuu sameeyay dalmar yar saasuu ahaa naagta saasay ahayd inay tiraahdo ma dhamaad ma lahan taasina waxa daliil kuba ah ninka wuxuu baray wuu ka dhadhanaansaday meel kaloo ka aadanaagu ka aroose rabitaankii ee rabtay jaceelkii ee u qabtay wiilkeeda ku sansatay xataa wiilkii ee ku samisay samiga dhaxmaray way ku sabri la'dahay sagaashanka hadda arkisaasi u daba taagantahay dhamaad la'aan kaba yare dalmar yare way jecleed sidaa wada ognay jaceel u qabtay dartiisa wiilkeeda ku sansatay dalmar ee u bixisay inna lillaah وبعدين ناقو وبودا ناقو قرعي dadkii 2010 2011 2012 waa la isku haystay lamaana la isku ahaa ninka ee farxiyo kabayr hadda noo sheegaysa lamaana isku ahaayeen way isku istiimi jireen heesta dhunkasho ma daabato ma aragtay sida isku ahaayeen heesta dhunkasho ma daabateen sida isku ahaayeen ma aragteen dalmar yare iyo farxiyo kabayr dadka hadda wax iska sheegayo sida isku ahaayeen ma aragtay labadan bishimo oo la leeyahay oo la saaray isma taabanin ani ma ogoleen ebel waa diidanay labadan bishimo isma taabanin ebel anoo diidanaa ee hadda banaanka toos u soo wada baxday way is celin weyse farxad darteeda ma isku celin weyse maseer ma isku celin weyse ma kala aqaan farxiyo kabayr waxa la yiraahdaa ninka meel xanuunta asaas oo nuuxsan doono marka farxiyo kabayr meel xanuunaysa marba meel u booday
yaa jaceylka uu ku soo noqdo kasba waa la kasbadaa ama uu ooy ama uu calaacal dalmar yare weligiisa nin inaag isfuri jireen haddii la isfahmi waaye nolosha waa lagu kala tagaa naag la furay naagta uu furay yacni dalmar yare ma ugu horeyso adigaba waa lagu soo furay kooyaa ku furay koo kale intaa ku furay kii saddexaadaa ku furay kii afaraad dalmar aragtay inaad ka dhigatid wuu kugu booday jaceylka u qabtay dartiisa inaad ka sabri weysay wiilkaagaa ku sansatay waxay ahayd maadaama uu samay idin dhex maray inaad ka xishootid farxii kaba yara laakiin toos ah ugu daba qaadatay mee la arkaa bil kadib 2 isbuuc kadib dalmar ayadoo soo dhihin ma noolaan karto ilaahay wuxuu dhahay laa takallafu allahu nafsan ilaa wasca arladan waxaa loo weyneeyey oo nimanka loo badiyey oo naagaha loo badiyey labada isfahmi weyse inay kala tagaan labada isfahanta inay isku imaadaan laakiin farxii kaba yar hadda caay iyo ceeb waxay ka dhigaysaa dalmar yar iyo naagtiis way kala tageen naagtu waa la furay lamaanayaasha xajka aadi jiray lamaanayaasha cimro aadsan jiray lamaanayaasha kacbada tegi jiray lamaanayaasha fiidiyoyaasha noo soo duubi jiray sir hoose jira ma ogtahay wax badan ee ogahay waxa ogtahay anaga boo kula ognahay anaga waxa ognahay inaad dalmar hore u jeclaad jeceela u qabtay dartiisa wiilkaaga ah ku sansatay waa ognahay farxii kaba yare وبعدين هدا تهي نافتي أسي هدا كلفنين أدي اسكو صلابو سر المجال أو عقلية سن أو حاجة نك أكو كسبن كرتي ليرة دالمر يرى نك ليرة هذا أكو دي كرتني هو قرأسي خانو لفيه سأسكو يرى لفهرة اسكونا هاي يا دد هراء اسكو دي ما يعني هاي دد هراء وحواي عن توفتود اسكو جارتي يعني هاي kalama maarmi karo mana ka maarmi karo soo noqo adigoo dhihi kara si sharaf leh ina meel soo furatid ina meel walba Snapchat ka soo hadashid TikTok ka hadashid YouTube ka hadashid Facebook ka hadashid adee karaama xumo ku tahay farxiyo kaba